dawladda ma aha inay jidadka iyo elboorada iyo maxaa la dhihi jiray dekedaha ay kharash geliso laakiin dadkii beeraleyda oo dhibaataysnaa oo runtii wax soo saarka waddanka loogu bartay ha noqoto shabeellooyinka ha noqoto jubbooyinka yacni meel kastoo webiga shabeelle iyo jubbe ay maraan dadka ku nool waa dad loogu barta inay wax ay soo saaraan madaxdaasi meesha dawladda ka ah waxaa loo baahan yahay dadkaani in ay markaas fiirgaala u lahaato waayo dadkan waxaa dadki wax soo saaraya dadki markaasi lafdhabarta waddanka haddii dadkaani markaas ay meesha ay ku laadaan adigana markaas garwaatigaada ugu weyn yahay oo meesha soo fadhiista aad tiraahdaa maanta waxaan magacawnay wasiir dhibaatooyinka haysto walaalaheena ama dadkeena maxaa la dhihi jiray inta badan oo markaas beer falatada ee xoogooda maashanayo dhibaatada haysto waa dhibaato aad u yareen marka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا إذن سلامنا دمان دول مديد فاميلي ميربو عالم كأد كجوكتان صباح وناكسن قلب وناكسن هاوي وناكسن وقت ولا بعيدين تاهي ما شاء الله إن سيدار كيسين مانتا وحاقر به قفديو لو محمد ومحمد فرس إيو محمد نور إن سود هذا مركه هوري دونا إن شاء الله معلمها مواكم أخنا ذين شاشة دول مديد مركه قالي لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دون ميديا فاميلي وإذن سلامي ومحمد نور عثمان. رهانتي بريهان وحوا قد كان مسافر سنين كل يوم كم قنين مركا حوا هذه مشغول أو يسا. الحمد لله هذا نسق صلاة وني بإذن الله تعالى وحي مركز ورجلنا يسوليسا هذا مركز إذن سندا دولة هذا. إن شاء الله. الشيخ محمد فرس. sidoo kale waxaan leeyahay walaalihii dhammaan soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad mar saddexaad maasha allah tabaaraka allah insha allah waxa waaye maanta barnaamij yaraani wadnaa biidni illaahi tacaala aan u baahannahay inaan falanqeyno aan isxasuusino ama sidoo kale wixii markaas meesha ka jiro iyo sidii wax loo bedeli lahaa loo dhaqaaji lahaa aan ka wada hadalno kusoo dhawaada walaalaheenana insha allah biidni illaahi tacaala waxaan furi doonaa walaalkeena sheekh isxaaq برنامج ما سنتين جزاكم الله خير الجزاء ان شاء الله وحرجينا انا واحد بدنا اسكو عذر دارنا كان مقاني كان جوجو نعم حواي مشغولك اسك بدن نلشنا وقربه انت اسكدب وحرا مانت ان يعني وحيرا اسلا فيلنا موقال رنتي اد وحنون بدن اسلا markaasna يعني qalbigeena taabtay qof kasto muslim ah oo dadnimo iyo yani damir bin aadan leh oo asigana oo ka danqan doono hadii uu arko insha Allah sidaan ognahay gobolka shabeellaha dhexe degmadiisa jowhar waxaa ku teedsan ama ku heerarsan tuulooyin ay degan yihiin dad beeraley ah oo isla markaas aan dhihi karno waa lafdhabartii dalka maxaa yeelay waxay qayb ka qaataan wax soo saarka dalka saas ay tahay waa dadka ugu dhibaatada badan nolol ahaan iyo caafimaad ahaan iyo yani dhibaatooyin noocyadeeda kala duwan ayaa gaarto inta badan saas ay tahay maamulada dhisnaa ee ugu horeyso dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada yani intaba ma siiyaan waxyaabihii ay u baahnaayeen ama tixgelintii sida saxda ah waxay ahayd dadka noocaas ah oo wax soo saarka waddanka ka qayb qaato in maalgelin lagu sameeyo in la dhiirigeliyo in yani maxaa la dhihi jiray mashaariic oo wax ku ool ah in la taakuleeyahay si ay u horumariyaan wax soo saarka dalka maadaama waddanku ku tirsan yahay sida la sheegay beeraha iyo kalluumeysiga iyo xoolaha marka haddii aad aragtid muuqaalkan iyo waxyaabaha yani ka jiro meesha waa kaaf iyo kala dheeri sidaa ogtihiin gobolka shabeellaha dhexe اسبوعي لا صار في وحا كجرتي دورشدي maamul goboleedyada oo lagu dooranayay madaxweynaha baarlamaanka intaba waxa ognahay inay ku baxday lacag aad u badan oo malaayiin dollar ah waxa halkii xildhibaan waxa intaas oo kharash ah ku yimid baarlamaanka madaxweynaha waa ka sii dareeyeen marka intaas oo kharash inay doorasho ay ku baxdo oo dadkii oo xilligaas mas'uulka laga ahaana in ay waayaan waxay cunaan yani taas maxaa idin la tahay hadii fiirisid marka arintaasiitini waa arin aan u baahannahay inaan dadkii aan markaasiiti xasuusino ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wadakir فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن واحد حسوسية أو ذكي دبعت إسناد إنك سلوا الأركون عندنا بل هلا وضع أركو قعن وين يكالمة يقرقار دق دقنا هلا قرقارسيو دبعت أو هذا أي قبضتي بنكاس محل يجري
beeralayda ugu badan tahay waa beeralayda aad ay u saameysay yani guryahoodii ha noqoto dawladda horta markii la soo doortaan dawladda la dhiso dawladda horta dawlad ay madax u tahay horta shacabka duu baahan yahay dawladda maxay dawladda ka tahay taas waa tan rabno inaan ka jira waxay tahay dawladda adaraheeda fiirsato yani dawladdii waxay noqotay shakhsiyaadkii waxay fiirsadaan dantooda okay qofkan madaxweynaha ah ama xildhibaanka ama wasiirka meesha marka hore lacagtiisa ku yimid ee kuma imaanin yani qofkan ma yahay qofkii shacabka wax u qaban lahaa ma yahay qofkii deegaankan wax u qaban lahaa yani waxaan waa business waxay ku xiran tahay lacagta haysatid wax ku noqon kartaa haddii lacag badan haysatid madaxweynaha noqon kartaa wax yar haddii haysatid xildhibaana noqonay wax dhexdhexaad haddii haysatid wasiira noqonay meesha waxaa ka muuqata marka haddii waxaas oo dhan ay meesha ay yaalaan waxaa meesha ka muuqda in dadkii shacabka ahay korkooda lagu dul socdo si micnaha xuquuqdoodii meesha dulmiga ku jira marka sax waa dulmigaas anagoo ka hadlayno oo janaalkeena magaciisana oo yahay dulmidiin arrimaha oo meeshaas taalo oo loo baahan yahay inaan isxasuusin ama isfahansiin waxay tahay wasiiro haddaa wasiir naqatid madaxweyne haddaa naqatid dhulkii wax ka cuni lahayd ama badarka soo saari lahay haddii ay ku dhacdo dhibaatooyin noocaas waxaa la rabaa inaad daymo u lahaatid ama fiirisid ama aad ahayd war wixii aniga yani wadamadan oo inta badan banaanka oo kale banaanyaha wax laga keenaa wadamo qaar waxaa jira oo beero lahayn wax soo bax lahayn maxaa karabta adiga wadankayba ka jirtaa adig wadankaagii oo khayraadkiisa ay aad u fara badan yihiin haddii aad bariis banaanka aad ka doonata ka waran bariis banaanka imaado wadankiina bariis waa laga dadka abuurayna waa joogaan laakiin waa madaxa lagu taaganya that's the problem dulmiga noocaasaan ka hadlayna aan leenahay bal dulmiga ma ahayn in qof aad tunto ama xuquuqdiisa dulmiga meel buu galaa dulmiga waxa waaye wuxuu galaa xuquuqdii laanno dadkan waxa waaye waa dad markaasi oo macnaha masaakiina dadka masaakiinta ahna waxaa meesha joogaan madaxdii madaxdaasi meesha dawladda ka ah waxaa loo baahan yahay dadkaani in ay markaas fiir gaala u lahaato waayo dadkan waxaa dadki wax soo saaray dadki markaasi lafdhabarta waddanka haddii dadkaani markaas ay meesha ay ku laadaan adigana markaas garwaatigaada ugu weyn yahay oo meesha soo fadhiista aad tiraahda maanta waxaan magacaabnay wasiir adig maalin walba wax ma bedelay wax ma magacaabay okay qofkii markaas aad madaxiisa wax ku eednay wuu baahan yahay marka waxa waaye marka dhibaatooyinka ay fara badan yihiin dadkii oo ku noolaa jiinka webiga ama dhaqaalahooda iyo wax soo saarkooda uu ku saleysnaayo maxaa la dhihi jiray beer falitaanka iyo wax noocaas yani waa dadka ugu dhibaataysan maanta oo dhibaatada u weyn ay soo gaartay markii aan ka hadalno xag yani nidaamka dawliga ah ama dhaqaale ahaan ama caafimaad ahaan intaba waxay noqdeen dad yani macin badi ina wax ay ka helaan yani gacan shisheeye inta badan haddii aragtid dawladdiya waxay dadkaas wax weydiinaya yani international community ama united nation yani wax noocaas laakiin dadkan keliya waxay u baahan yihiin in la maalgeliyo tusaale ahaan hadda gobolka shabeellaha dhexe fatahada biyaha oo ka socoto ma aha markii koowaad labaad saddexaad ma aha markastoo barnaamijkaas oo dhacana yani maamulka xilligaas jiro caalamka waxay ugu cunaan lacag oo mashruucaas loogu qabanayo laakiin ilaa hadda wax laga xilli ma laha aniga waxaan bis dhahay arrintaasi in wax ku talgal ay tahay of course waa noqon kartaa wax meesha ay micnaha business iyo waxyaabahaas inay ku hoos jiraan laanno waxa waaye waxaan horta dee mar ay dhacaan mar labaad ay dhacaan mar saddexaad ay dhacaan marka afraad inay dhacaan waa adag tahay laannahu haddii markaasi ka hortag la sameeyo wixii markaas waa lagu hortagi karaa soomaali laakiin haddii wixii markaasi aan wax markaasi aan shaqaba aan laisku howlgelin markii wixii aan la waxayn wax ma gaaraan xaqiiqdii waa arrin oo aad u murugo marka arrin aad loogu xumaado waaye runtii ka jira waddankan wuxuu leeyahay wasiir ku shaqo leh wasiirka beeraha asoo federaal waa jira asoo maamul goboleed waa jira laakiin shaqadii ay qaban lahaayeen waa shaqada haddii ay dhibaatada meesha ka taagan waaye laakiin wixii ma aha cid wax ka qabanayso abiiraad ma laha ما أرجع حتى ما أرتاح وزير كهذا أريمه بيرو وزير بيرا كهذا أريمه بيرا ما أرتاح
ما waxaa inta wasiir beeraha oo tartamay inuu wasiir beeraha oo noqdo laakiin beer armiisa ka hadlayo oo waxa bal beertaaniti iyo dhibaatooyinka waxa waaye dulmidid family ahaan group ahaan waxaan aad iyo aad u leecaynaa wax walba horta dulmiga dulmi ku socda ama dulmi cad markaas aan u jeedno inaana ka aamusin balanteen hore ahayd marka insha Allah كل هذا وحن أود جدنا إن قبل كإن شغلها دحى إن فتحات بيئات وبدنا يكسوف كذا إلى حتى إن جديد كل ملاهي إن سدا إن خلينهم اللي يجري إلى إلى يحمر حلوي مع $7 دون صراع بسم الله إنها تهريب السواكلة يعني ما بحدي أمشى وحكة أهد ديارة يكبحان مقدشة إيجار 19 كيلومتر والله تعالى قال لي لا تنشن ده 15 minutes أو ساعة 15 minutes أو درايفين واحد باور الدنيا هذا حتى 10 كيلومتر 19 كيلومتر جيت بكون نظيف يا ما خلاص عن كلام و 40 minutes واحد خلاص عسكري اوكي كي أنا waxaa u soconaa maxallihi jiray hal maalin oo doon raacaysi $35 madaxdii shaqadaas loogu talagalay waxay ka qabato diyaarada ku baxan ay ku yimaadaan lacagahoodii campaign oo doorashay geliyeen marka lacagta dadkii hadda la doortay tusaalahan hadda madaxweynaha hadda la doortay hebel Goodlawe afartii sano la soo dhaafay xoolaha madaxweyne ku xigeen ka horna waa joogi soo intaanu dhibaato dhacay ama rafaadkan waxaan waa jireen la saas ay tahay asoo wax ka qabanin aan loogu sii daraya waxa la yiri adeer hadda madaxweyne soo taas maxay ku tusinay qof qabana cid rabta ma lawaad ma rabo qof wax qabana cid rabta ma laha meeshan waxa mataqaana wadankii waxa mataqaana meeshii waa sida hore soo sheegnay waxaan wixii markii ay yihiin wax business markay yihiin iyo markii ay wax markaas ala u qabo ما لو خبص إلى هذه شو قبل يستاهل شو قبل يسوق نعم لكن دوية مختلف نعم أرن ما كان عضو ضد كيلو صوب بندقو ضد كيلو تسنة نعم لكن أرن ما كان عضو أنا لا يوت سنين ووحدي مركز اللي بعد ماشي كيماتي ووحدي دعين وأن مركز أن بقى تعالوني صح then it's حوا أرن أرن ماشي حرام أنا أذن تصور فيديو ير أو محل جري nin 85 jir ah oo beeraley ah oo dhibaato badan ay soo gaartay yani kaas wuxuu ku leeyahay nolosheedu waxay ku xiran tahay wiil 10 sano jir ah malay oo ii soo gaaday aan yani waxa ay qudi ah maalintii oo malayga soo waayo yani nolosheedu zero waayo marka qofkii dhan oo maxaa la dhihi jiray intaasoo hectar oo soo saaray oo yani kan beer u haysta biyo haysta dhul haysta wax kale oo ka maqan ma laha adduunka dadka ugu lacagta badan dadka beeraha leh waa soo aniga laakiin dadka ugu baahida badan dadka beeraha leh waa marka intaas waa waxaan isdhihi karaa wax la gaarsiiyey ama loogu talagalay waaye inaan indhaha furno barnaamijkaasna wax badan laga yiraahdo dawladda ma aha inay jidadka iyo elboorada iyo maxaa la dhihi jiray dekedaha ay kharash geliso laakiin dadkii beeraleyda oo dhibaataysnaa oo runtii wax soo saarka wadanka loogu bartay ha noqoto shabeelooyinka ha noqoto jubbooyinka yani meel kastoo webiga shabeelle iyo jubbe ay maraan dadka ku nool waa dad loogu bartay inay wax ay soo saaraan laakiin yani مع الأسف دتك ما تروح أي واحد دتكاس. هوصلوا دقيقة أما كلا عن واحد لقى خبرنا عرم هذا دباتوين كود الفيرنين. الله فيرنين. أما كلا يعني واحد عن لقى خبرين بل لأنه أولي بواحد لقى خاطر دباتوين كود. هذا فائدة تو. أي واحد لقى فائدة. هذا يو مشروع بدن الجليو مركب وحنا لا هي عن لنا هاي دمان دتك مسؤول دتك مسؤولين تسوامال يجوك تدول ده هي سلوك الوزيرين وزيرياش واحد لمده. إن إلهي كعبسدان أي أريمهانيتي وكلنا مركزيتي آدي قدم خدان أي اسكت ديان إن وحكة قبتان أريمهان ودي دولة نما أنشيغنينا أما لنا سومالي ما أنت سيدور ويدا أنت هوري أسعتا دولة إله الحمد لله أو سيسيورا أنت مركا هو وين أنسمي لنا واحد ده كم سوسيتي سنة كشخين نورت ودن كاسرت وحواي إلهي ورتا إلهي ورتا حول بتوسيو نعم إلهي وحنا نورت إلهي نوتوسيو نعم أمانتين ووزعنا هاي وطن كانوا هاي نعم لكن هل ماذا ماشي تابو صح ماشي وحيا الظلمي مقولتها مركز ظلمي انتو جلو إنه حاجة ما أنا ديكسون وملنا ماشي وحيا الظلمي يا حالك الظلمي على يا وحيا إنسان لسكو حسوسي أو خف كستو لو شيء وخلت كيسي أو بركاسيتين
باذن الله تعالى وحان قلوب بني ادم واي waxyaabo ayaga arkoodna laga yaabaa ma ifahsaneen inuu ilaahay qulubtooda ayaga ku soo riday fahmaan marka dulmiga waa shayga kaliya gadaal noo celi karo ama gadaal oo loo gadaal dhac keeno ama dib u dhac keeno oo dhibaatooyinkan aan laga bixin dulmiga waa wax dulmiga laga bixin karna akiskiisa waay oo ah in dulmigi la iska dhaafo oo alxamdulillah iyo dulmiga hadii qofkii iska ilaaliyo iska dhaafan waxa dhacayso inuu qofkii ilaahay subhanahu wa ta'ala ama wadankaas ama dalkaas ilaahay barakeeyo oo hor u socdo imaam صح ان شاء الله ilaahay horta waxa way oo bariyana in sha Allah ilaahayna horta dulmiga iyo soo dadka la dulmiyayna ma ayna ayagana dulmiga eraal ay ku noqdaan oo wixii ay u saabiyaan yani dadkii dulminayay ama maalin kasta wixii ay yihiin wax soo taagan in tusaalahan in maamulka Hirshabeelle oo kale ma yani markii ugu horeysay ma وحليدي حسن شيخ محمود وصوب بلعبتي فدرال عام أو مرينا دورشة دي لواد مرة مرة دي دورشة دي هراء أو تبني سين يعني الظلم يصبرسي يعني لو يعني حد قدبي يعني كي هراء عامستان كم وعامستان مركب وحيابك الوصول صعدة يعني مو ملين كرتين أو حسبدل وإيمانه ما دام ولو الدولة هراء عامستي عامستين سنة أو صاع عامستي أو رالي كنا خطي يعني صورة تجرم مرخنا يسوينا تريادين حقيقي علاقاتي وحال أنا هم تحوى إن هذا ندك خوفك بني آدم كوحوى إن ندك إلهي يرتب موازين المتاع خوفنا وحوى إن أسيو وجهده إن حقيقة وطمنا أيو إسكا مسيحي وعليه هي إلهي جوجو خوفنا وحوى حقيقة أسيو عنا سوجده كهلا فهمت لكن وحوى ددنا هذا أنا كهلا ينو ددنا وحوى والله هذا أنا جاهان بالمدينة هان وحوى ددنا أي جاهلا فهمتي إنسان مركز أنا هذا وحوى وإن معناها إسكت أكبرن أو مركز أو إسك مساكين وإلهي معناها إن مرود وديبتي فهمت marka insha Allah ana kulay dul mididahan waxaan jecelnahay mar walbo in aan dulmiga aan ka soo jeesano oo aan ka hadalno mar walbo oo aan u gudbino cid walbo cid ay khusayso ama wax ka qaban karto inaan gaarsiin karno waan gaarsiinayna insha Allah kulay waxa waaye video waajira ku saabsan dadka fatahaada oo ku soo fatahay biyaha waxay kadibna ay tusi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo إن شاء الله فيديو كان عن فرسانو كدبنا محلي جري خوف كستو صوماليا أو دبعتسن عالم أما نودن كمشر وكجو سكودينا وحكي خبتيت أدي صومالي نما مسلم نما يعني كوجو جرتو مركا لحرير أو رادي خوف كستو دبعتسن أو يعني إنا وحكي خبتيت هدو إلا يرادو كدب فيديو كان عن أصلا ركنا وحي كاغا صوبحو أما فكري أركتيها أنا كومنتي أنا أقول أفضل الله يرادو. أنا وهم كنا على هاي عنك سيتن يشان سنة كجراي بيرتنا كنا على هاي بيرتين كنا على هاي نروب يو بيا جوي إذا فساد كي هرجوي أهدان أركنا جوي أجوي عنك ثمن جرء ملاي سوكارا مهان كجوي أبي مالنا مهان كجوي جوي بيهنا كجوي حجراي meel kale oo ku ekarana malaha wax kale meel kale wax kala ayna malaha biyahana dhax joognay biyahan maxaa quud oo ku cuntaay maxaa ku cuntaay biyaha malaay la soo gaaray oo 10 jir cunug 10 jir aan dirtay ay mukaan ii wada mukaan taas biriga barkaas walax waa soo waayay mumkin soo waay awdi waa iska jiiftay وأنا سلسلنا بلانتين وحوى أن ظلمي قصي والجرع وهرتكنا أنتي عن نوم معي ما دام الله سبحانه وتعالى ويري إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أن سيدو كلا مسؤولين تا أن دولة الفدرال كأي لمان معمول قوليتي ده يعني قف كستو مسؤولة هير دكمو إلا إيو هير يعني عاصمة وحان ليه هي أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته النبي عليه الصلاة والسلام قف كستو ذيك كمدة ومسؤول وحان لو يدين دون عمالة القيامة وحي مسؤول لو بدأي أما الراعي مركا إنا مسؤولين دا الجدتيد وحي كجرتا أنا دنت هذا الدنيا مد آخرة أن
more oo mas-uuliyaddii lagu dhiibay oo kasoo baxdid more oo adduunyada oo respect ku noolaatid aakhirana ay rajadaada fiican tahay waaye marka balanteena waxa waaye inaan wixii dulmi ah si wadajir uga hortagno wixii wanaag ahna aan si wadajir u wada taageerno insha allah aada waa mahadsantihiin جزاكم الله خير هذا ما سنتين تاني يوم مركل أنت برنامج نوعا وكلام قول كل منه أنا بقى دوميديد فاميلي وحنيدين لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي أتنا كعصبتها هاي سبسكرايب لايك نصار شيرنا كيلون إن شاء الله ولا راح كل سوق قارو وأنا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله دول بيجا أقوى شقينا إن جوجينو ونادي عدالنا عن كشقينا إن هرقوتنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace. Peace.